kulanti wacan wanaagsan daawadayaal meel walba dadweynaha ka joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka maxaa cusub oo idinku soo gudbino alaaba wararka dadka caanka ah ee Soomaalida iyo kuwa adduunka. Haddaba daawadayaal intaan barnaamijka idin soo gudbin hadad nagu cusub tahay nagu soo biir oo taabo subscribe iyo gambalaalka si barnaamijyada xiisaha leh aan soo gelin doono aanay ku dhaafin. Sidoo kale hayloona taabto like comment hoos nagu reebto wixii falcelin ah. boqorada codka Yurub Maxamed Cabdi Yurub Genyo ayaa shalay la dhigay isbitaalka gargaar ee ku yaala magaalada madaxda Soomaaliland ee Hargeysa kadib xaalad caafimaad darro oo la soo diristay fanaanada caanka ah. Dad badan oo isugu jira wariyayaal iyo dad shacab ah oo fiisdoon ah ayaa qaarkood iyagoo hubsan wararka ay dadweynaha la wadaagayaan ay bumbuuniyeen xanuunka fanaanada halka website-yada qaarkoodna ay qorayeen in Yurub Genyo geeriyootay arrintaas oo saliira toona lahayn balse iyagoo ay kaliya ku rabaan inay ku helaan fiis fara badan. Dhaqan xumadaas ay ku kaceen dadka fiisdoonka ee ka baxsan bini'aadanimada waxaan leenahay isku xishooda waayo been noocaasa meel kuma gaadhaysan kalsoonida shacabkana wad ku waaysan. Haddaba daawadayaal goor dhawaad oo la xiriirnay fanaanada Ifraax Hargeysa ayaa noo sheegtay in Yurub Genyo ay ladan tahay maalinta berina insha Allah ay gali doonto qalliinka xameetida looga jarayo. Haddaba Yurub Genyo waxaan rajaynaynaa caafimaad sare ah inuu Ilaahay u fududeeyo qalliinka iyadoo nabad qabtana ay u soo laabato eheladeedii iyo taageerayaasheedii jecelaha. intaan subigi lahaa sida carmadkahay intaan ku dhawow lahaa yaa ka dhaqlahay intaan subigi lahaa sida carmadkahay intaan ku dhawow lahaa yaa ka dhaqlahay nagu soo biir oo subscribe iyo gambalaalka taabo si aanay ku dhaafin muuqaaladan soo gelino. Sidoo kale nagaga xidhno bugagan ku leenahay baraha bulshada gaar ahaan Facebook, Instagram iyo Snapchat.